warahmatullahi wabarakatuh. Khiyaartan dhegeysanaysa halkan waa qarnimo online oo idin kala soo hadlaysa istiida magaalada Toronto bisha January waa 2009. Khiyaartan dhegeysanaysa maanta waxaan idin haynaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan. Barnaamijkaasi oo ay noo suura gashay in aan wareysano dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto, dadkaasi oo isugu jiro shaqaalaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya Toronto International Airport, iyo annagoo soo booqanay dhowr goobood oo kamid ah goobaha lagu qaxweeyo ama loo yaqaano fadhi ku-dirarka. Haddaba dadweynahaasi waxaan weydiinay sida ay u arkaan ra'yigooda ama wixii tala ay ka dhiiban karaan isbeddelka kusoo kordhay siyaasadda Soomaaliya iyo heerarka kala duwan ee maanta ay marayso. Haddaba dadkaasi waxaan weydiinay dhowr su'aalood. Su'aalahaasina qof waliba wuxuu ka cabiray ra'yigiisa iyo aqoontiisa sida ay tahay ama sida uu wanaagsan uu arko maanta siyaasadda Soomaaliya in wax looga qaban karo ama xalka uu wanaagsan loo gaari karo. Haddaba barnaamijkaas waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Axmed Maxamed Faarax. Khiyaartan dhegeysanaysa barnaamijkiina waxa uu dhacay sidan. xasan oo ah suxufi xor ah isla markaasina inta badan maqaaladiis ku soo qoro gadanet. Cabdi, adiga aad u mahadsan, sidee ayaad u aragtaa isbeddelka kusoo kordhay siyaasadda Soomaaliya maanta? bismillahi raxmaani raxiim. cumar aad baa umahadsan tahay iyo website-ka qarniga online-ba. waxaan marka hore rajeynaya dadka Soomaaliyeed sanadkan soo bilowday inuu noqdo sanad khayr iyo baraare iyo nabad iyo horumar ay ku gaaraan, dhibaatadii badnayd ay ka baxaan. waa mahadsantahay. runtii waa arrin lagu farxo isbeddelka hadda Soomaaliya ka dhacay, waana mid loo baahnaa in madaxda sare ay tanaasulaad iyo la yimaadaan iyo tixgelinta rabitaanka dadweynaha Soomaaliyeed. marka arrintan waa arrin runtii dadka Soomaaliyeed soo dhaweeyeen, kuwa gudaha jooga kuwa dibadda joogaba. waxaana la filayaa inay u noqon doonto tallaabo bilow ah nabadeynta iyo soo celinta qaranimada Soomaaliya. waxaan rajeynayaa inay noqoto arrin runtii u noqota tusaale madaxda qaranka oo dhan. waxaana filayaa inay noqoto arrin bilow u noqota in soo dhisa qaranka Soomaaliyeed burburay. Sile, adiga aad u mahadsan. Sidaad la socotid waxaa heshiis gaaray ururka isbahaysiga dib u xoreynta iyo dowladda ku-meel gaarka ah, waxaana la filayaa inay maaragtay dowlad wadaag oo wadajir inay soo dhisaan. marka sidee ayay kula tahay arrimahaasi in lagu midayn karo waxna u wada qaban karaan? waa mahadsantahay. runtii isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladda ku-meel gaarka oo kuwii Jabuuti dhowr goor ku kulmay, heshiiska ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa mid dadka Soomaaliyeed badankii ay soo dhaweeyeen oo ahaa in dowladda la ballaariyo, baarlamaanka xubnihiisa la ballaariyo, taasoo loola jeedo in dad raaligelinta kooxaha iyo arrimaha Soomaaliya ka jira in la qalayo dadka siyaasadda Soomaaliya ku jira. inkastoo tirada dadka baarlamaanku ay aad u badan tahay, haddana waxay ila tahay in dad badan oo aniga ra'yiga qabana way jiraan inay tahay in la qanciyo dadka wax doonaya, kadibna muddo gaaban dabadeed dadka Soomaaliyeed iyagu nidaam axsaab ay furtaan oo taa ay keento in dadku doorashooyin iyo axsaab ay ku yimaadaan. marka waa arrintan silsiladda madaxweynahana waxay runtii furo noqon kartaa heshiiskaas inuu meesha laga sii ambaqaado oo uu noqdo mid taabagala. waana rajeynayaa in wax fiican ka soo bixi doonaan dadka Soomaaliyeed ay aad u sugayaan. Sile, sidaad la socoto Cabdullaahi Yuusuf waa iscasilay, Maxamed Dheere maamulkii gobolka Banaadir waa laga qaaday, inkastoo wararka la hadda ay sheegayaan maaragtay in la xiray. marka ka bixitaanka siyaasadda Soomaaliya labadaas nin sidee ayaa u aragtaa? runtii waa arrin muhiim ah. labadaas oday siyaasadda muddo bay kusoo jireen, gaar ahaan madaxweynuhu waa kii isagoo ku khudbeeyey 40 sano wax ka badan
siyaasadda Soomaaliya kusoo jiray haddana haddii uu rabitaankii dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaca caalamiga international community oo aqbalay oo uu aqbalay anigu shakhsiyan inuu sidaa yeelo midda kale Maxamed Dheere aniga oo siyaasadda Soomaaliya qaybihii dambe wuxuu ka jiray dad badan oo Soomaaliyeed oo waxbay runtii tabanaya dadka gaar ahaan Muqdisho degan marakahoodii iyo dhibaatooyinkii gaareen waxba ku lahaa haddana waxaa muuqatay in isaga iyo nimankii Allah iska ahaayeen oo Itoobiyaanka ay isqabteen taana ay keentay in hadda isagii uu khatar ku jiro marka waxay taa lafteeda tusaale u noqon kartaa dadka Soomaaliyeed oo siyaasadda ku jira inaanan ku taxaddaga dadka Soomaaliyeed ama dhibaatooyinka Soomaaliya loo geysto inayna meel la dhacaynin oo qofku meel nooga soo bixi karto marka bixitaankoodaasna waxaan rajaynayaa labadaas oday inay horseedo nabadayn iyo heshiis guud oo dalka Soomaaliya ka dhaca سيلي آد يا آد يا أم عصمت هاي كاسين عبد آل حسن الله يقان سيلي أنا صحفي حرقة وإنت بضح قصة قبلت عندنا waxaa soo gashay in aan wareysano Mahad Sheekh Xuseen oo ka mid ah shaqaalaha Soomaaliyeed ka shaqeeya Trans International Airport Mahad adiga aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sida ay u aragtaa wallahi horta Umar waad mahadsan tahay hadda isbeddelku waa ugub ama waa bilow marka anigu waxaan qabaa in la sugo oo aan la hor dhicin bal aan aragno bal horta arrintu meesha ku biishoon doonto waaya marka isbeddelka siyaasadeed maadaama aad tiri waa ugub haddana aad og tahay maaragtay qabanqaabo in lagu jiro ururka isbahaysiga dib u xoreynta dowladda ku meel gaarka inay dowlad wadaag suubiyaan marka sidee ayay kula tahay inay isula jaan qaadi karaan waxna u qaban karaan waa Umar horta arrintan dib u heshiisiintu waa arrin aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ay ugu jirto laakiin haddii ay ka madax bannaanaato faragelin shisheeye waxaan u malayaa ummadda Soomaaliyeed inay isku soo dhawaanayso waxna qabsanayso haddii la helo ummad Soomaaliyeed oo aan bannaanka laga faragelinayn taas ayay ku xiran tahay haddii ay noqoto faragelin waxba ka xanaaqsan mayaan siyaasadda maaragtay isbeddelka siyaasadeed ama iscasilaada madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo qaadistii laga qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Dheere isla markaasina la leeyahay waa la xiray sidee ay u aragtaa horta arrintan Cabdullaahi Yuusuf kadibta oo meesha uu ka tegay waa arrin ku timid pressure ay saareen qooyinkan United iyo qoladii Soomaaliya faraha kula jiray tan arrinta Maxamed Dheere anigu waxaa ila muuqataa in iska hor yimaadeen awdba raggii keenay oo Itoobiyaanka ahaa haddii markii iska hor yimaadeenna hadda nin waxa weeye raggii keenay hadda ayaga siibay intaas oga baxay mahad aad iyo aad ayaa umahadsantahay haddana waxaa noo soo gashay in aan wareysano Cumar Xuseen oo ka mid ah asna shaqaalaha Soomaaliyeed oo ka shaqeeya Toronto International Airport Cumar adigoo mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya kusoo kordhay sidee ay u aragtaa bismillahi raxmaani raxiim isbeddelkaasi waxaan rajaynaynaa ama aan u arkaa fikrad ahaanteyda inuu ka duwan yahay kuwii hore maadaama dadka Soomaaliyeed dhibaato badan soo mareen 18 sano oo baaba iyo baraka ah waxaan rajaynayaa kan ummadda Soomaaliyeed inay cashar ku noqoto 18 sano la soo dhaafay oo ay taageeraan barnaamijka cusub iyo isbeddelka soo socda oo aan rajaynaynaa haddii alla idmo kuwii dhibka sameeyay haddii ay naga waday waxaan leenahay kuwa ka khayr badan Allah noogu bedelo ummaddana waxaan leenahay gacmaha isqabsada wixii khilaaf ee jiray ha laga heshiiyo Soomaali marka hore markay diraan geeday faysan jirtay kabacdina waa ku heshiin jirtay marka anigu intaasaan idinku dardaarmayaa maamulka cusub ee yimaadana waa loo fiirsan doonaa haddii khaladkiisa uu la yimaadana waa mid idinku maaragtay aad awood u yeelanaysiin waxaan rajaynaynaa doorashadu inay noqoto mid xalaal ah oo dalka Soomaaliya gudaheeda lagu qabto taasaan taageersanaa isbeddelka ama heshiiska dhexmaray ee ururka isbahaysiga iyo dowladda ku meel gaarka hadda la rabo inay sameeyaan dowlad wadaag oo wadajir ah marka sidee ay u aragtaa arrintaasi inay isla jaan qaadi karaan arrintaasi waxaan u malaynayaa inaysan u baahnayn faallo dheer sababtoo ah waxay tahay meesha aan joogno wixii shalay dhacay in dib loogu noqdo waa laga wanaagsan yahay waxaa wanaagsan in gacmaha la isqabsado isbeddelkanna lala shaqeeyo maadaama aan u aragno in uu ka duwan yahay kii hore oo shuruudihii faraha badnaa amhaaradii ay waddanka ka baxday Soomaali maanta waxay isku qabsatay khaladkana Soomaalida asalkaba ayagaa qayb ku lahaa marka hore kanna khalad lagu saxayo oo khalad lagu saxo marka mid saddexaad inuusan dhicin waxaan rabnaa in Soomaaliya ay dib u fiirsato oo ay gacmaha isqabsadaan maamulkan cusubna ay soo dhaweeyaan
siyaasiyiin Soomaaliyeed ee hadda rajada kale in Soomaaliya hoggaankeeda ay ka mid noqdaan ama mustaqbalka dhow ama kan dheerba iscafilaadda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo xilka qaadistii Maxamed Nuur Xabeeb Maxamed Dheere ama xiritaankiisa ma u malaynaysaa inay cashar iyo tusaale u noqon doonto ummadda Soomaaliyeed? waxaan rajaynayaa arrintaas dadka waxgaradka ah ama jecel nabadda inay u tahay tusaale xiritaanka Maxamed Dheere sababtoo waxay tahay waxa uu gala waa la ogyahay dhibkii Soomaaliya ka dhacay gaar ahaan gobolka Banaadir ninkii mas-uulka ah waa asaga dowladdii hore meesha ka baxday Cabdullaahi Yuusuf hogaaminayay ayaguna xisaabtankeeday leedahay waxaan rajaynaynaa balse marka hore in la iscafiyo kadibna dowladda marka hore lala shaqeeyo nin walbana khaladkoo gale markaas dowladdeedu awood u leh ee la xisaabtami doonto. Cumar Xuseen aad iyo aad ay u mahadsan tahay. haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano Maxamed Cabdikariin Cilmi oo asna ka mid ah shaqaalaha Soomaaliyeed oo ka shaqeeya Toronto International Airport. adigoo aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee ay u aragtaa? عمر أبو المصنطي سواشا سيودي سماك شاء الله صعنا صوماليا يعني لو كل صوماليا يعني أبو لو سامين سواحيا كذا صوماليا يسبدل كذا يسبدل شوه مركا هم جدان وكذا هذا مثلا مدحوينه عبد الله يوسف أحمد كتيكتان أو استعجلين زغدي مدحوينه ممكن ما كان نكاس عبد الله من ورايا ومدو بدن ودن كان يعني وصل شغلنا marka waxa uu arkaa runtii soo qosnaha dalka Soomaaliya soo ku soo noqdo adoo ay bulsho iyo maartay door weyn ka qaado marka mas'uuliyadda waxa dhacay yani in dad badan ka waayeen Soomaaliya garana wada badan ka dhacay marka soo jirina Soomaaliya oo madax banaana ama qof kasta Soomaaliya madax oo madax banaana fikradihiisa iyo talaabooyin gaar ah kama shisheeyo baa mar walba ku jira waa Soomaaliya kaliya oo gacan banaana arrimaheeda khaaska marka saas waa uu aan oo laga shaqeyn waayay dowladda badan oo ku jira siyaasadeen iyaana u yaamay saas qawaaro isla ma heshiiska dhexmaray ururka isbahaysiga iyo dowladda ku meel gaarka lana rabo inay dowlad wadaag ay suubiyaan arrintaas ay u aragtaa heshiis walbaanu shakhsiyan oo soo dhaweynayna oo Soomaaliya xamara laakiin hore uu sheegay gacmo shisheeye ku dhex jira oo qolo daro gaarka ka dhaxeeyaya marka waxaan qabaa heshiis Soomaaliya duu soo dhaweynaya laakiin in la eegayyo qolo ka soo mucaarada soo jeeda markii heshiis la gaaro qolo kala fikra oo markay saytano mucaarada ma eekraabo wadamo shisheeye dawlad la gala marka afraaya Soomaaliya ka wato waxyaabo soo dhan Soomaaliya geed si loo hoos inta ka soo heshiiso baan qabaa marka ilaahay waxa kala jeedana saafka cusubna inuu ilaahay Soomaaliya qalbigooda soo jeediyo oo wanaag iyo horumar gargaarsiyo xiritaanka Maxamed Nuur Xabeeb Maxamed Dheere maqulata inay cashar iyo tusaale u noqon doonto dadka siyaasadda Soomaaliyeed ee hadda u hanqaltaagaya ama raba inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha soo socda Maxamed Dheere waa la socotaan mowqifkiisii Etoobiyaankaas oo dib weyn Soomaaliya ku haya marka qofka Soomaaliya maanta wuxuu ku qaadanaya Etoobiya inay wanaag Soomaaliya u dooneen kiisa la shaqeynaa uma waxa ku taraysaa in la soo geliso maanta xataa qoladaas dhexe waxa daalaha socda inay ku socota marka waxaan qabaa ninka Soomaaliya halweena waa Etoobiyaan waxa Soomaaliya niman kala gaarsiiyay dhibka ilaa hadda ilaa 20 sano iyaga marka masuul marka rakasa oo noqonaysa xasab aad iyo aad ayaa u mahadsantahay haddana waxaa noo suura gashay Cumar Macalin Axmed asna ka mid ah shaqaalaha Soomaaliyeed oo ka shaqeeya Toronto International Airport Cumar adigoo aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee ayaa u aragtaa waa mahadsantahay Cumar su'aashaas aad weydiisay anoo fursad u helay maanta inaan wixii ra'yigayga aan ka dhiibto isbeddelka ka dhacay Soomaaliya aad bayaan ugu faraxnay Soomaaliya marxalado badan ay soo martay waxaan rajaynayaa markaana inay maaragtay ay noqoto qof kastoo Soomaaliya inuu ku qoos qaato waxyaabihii la soo maray oo xanuunta garan loo laqo oo waxa la dilaya ama waxa dhamaanaya ama waxa dhimanaya waa dadkeenni inay gacanta isqabsadaan waana u ducaynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim ummadda inay midoobaan ayaan kula talin lahaa Cumar adigoo mahadsan
xiritaanka maxamed nuur xabiib maxamed dheere ma kula tahay inuu cashar iyo tusaale u noqon doono siyaasiyiinta soomaaliyeed ee rajada kale inay soomaaliya mustaqbalka siyaasadeeda inay ka mid noqdaan shaksi la xira qaran dhan maaragtay ma la dhihi karo xalad xal bay noqonaysaa dembiga iyo qof kasta wuxuu ka galay waddanka hadda ma taagna waxay taagan tahay markii dowladdii ay istaagto oo dadkay wada heshiiyaan qof kastaba haddii la yidhaahdo dembi uu galay lagu qaado dee waxaan u malaynaya qof iyo ma jiraan u malaynaya qof kastaba dembi waa ka galay waddankaas inta oo siyaasadda yani lagu jirayba marka ha ugu weynaato soomaalida dee waxaa ku dhex jiray waxa weeye waa dad cadowa oo mataqaanaa oo la keenay waddanka oo etoobiyaan dee ayagina hadda de waxay garteen inay maslaxad ugu jirin dee waa ka faralaabteen waa ka tegayaan sidaan maqlayna hadday baxaan waxaa la rabaa soomaalida inay dib iskugu noqdaan waa dad walaalaha dad wada dhashay sidaan hore u waray haddana waa ku celiyey soomaalida inay midoobaan ay shaksi la xira ama qof la xira hadda ma taagna waxay taagan tahay inaysan u midoobi lahayn marka hore oo waddankeennii aan dib ugu soo celin lahayn noloshiisa cumar aad iyo aad ayay u mahadsan tahay haddana waxaa noo soo rogashay inaan wareysana cabdi maxamed faarax oo kamid asna shaqaalaha soomaaliyeed oo ka shaqeeya toronto international airport cabdi adigoo mahadsan isbedelka siyaasadeed ee soomaaliya sideed u aragtaa bismillahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa isbedelka siyaasadeed ee soomaaliya hadda ka jira mid wax weyn ka tari doona kii hore ee soo jiray inta badan muddada dheer maaragtay lasoo socday 20 sano aan kusoo dhex jirnay insha allah mid hagaaga oo ummadda soomaaliyeed wax weyn ka bedeli doona ayaan ku rajo weynahay cabdi sidaa la socoto ururka isbahaysiga dib u xoreynta iyo dowladda ku meel gaarka heshiis ayaa dhex maray waxaana laga rajo qabaa sida lagu maaragtay la filayo in ay dowlad wadaag wada jira inay suubiyaan marka sidee ayaa u aragtaa arrintaasi inay wax u wada qaban karaan bismillahi raxmaani raxiim cumarow arrintaasito raggii horena waa ka wada hadleen fikradayda aniga aan aaminsanahay waxay la tahay in ay wax weyn iska bedeli doonaan ciidamadan iska soo horjeeda iyo dadkan ku dagaalamaya markii hore dowlad iyo isbahaysiga hadday isku darsamaan in ummadda soomaaliyeed ay guul u soo hayatay ayaa aaminsanahay waa taageersanahay insha allah waxaan rajaynaynaa biidnillahi kariim in ummadda soomaaliyeed ay ku wada faraxsan yihiin ummadda soomaaliyeedna bogooda burcad ilaahay isu mariyo oo nabad lagu wada heshiiyo mid weyn wax ka tara xagga nolosha everything dhaqaalaha kulli dadka wada dhibaataysan yihiin meel kasta adduunka joogaan anagoo halkan joogna kanada xitaa waxaan jecelnahay caruuraheenii ee halka ku koray dhib baa ku haysta in aan waddankii ku wada laabano anagoo wada nabad qabna cabdi adigoo mahadsan helitaanka maxamed nuur xabiib maxamed dheere ma u malaynaysaa inuu tusaale iyo cashar u noqon doono siyaasiyiinta soomaaliyeed ee rajada kale inay siyaasadda soomaaliya ay hoggaankeeda ka mid noqdaan adigoo maaragtay soo koobaya dhibaatada dadka soomaaliyeed ee ku haysata qurbahana sida caruurta waayeelka iyo dumarkana bal maxaa ka dhihi lahayd cumar taas waxaan ka dhihi lahaa saaxiibkii cumar iga horeeyey cumar macalin axmed ayaa ka hadlay dawey uga hadlayna waa ku raacsanaa sababtoo ah xal ma noqonayso shaksi laga xiray ummadda soomaaliyeed inkastoo qof aan dembiga qaranka soomaaliya dembi ka gelin inta dowladda iyo ku jirta kulli dhammaan waa la wada galay waxaana aaminsanahay in maaragtay dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay xal tahay laakiin ani xal ma u arko shaksi la xiray waxaana kaloo aaminsanahay in loo arko qofkaas qof maaragtay isaga laftirkiisa dhib loo sii geystay inkastoo dembi lagu eedaynayo isna ilaahay inuu ka toobad keeno ummadda soomaaliyeedna ay cafiso anxaaro hadduu gacanta u galana ma jeclo qof soomaaliyeed dembi kastoo qaranka galo inuu cafis weydiisto ummaddiisa soomaaliyeed ayaa aaminsana tan qurbaha dhibaatadan ka jirta adigoo maaragtay waayo arag u ah maxaa dhihi lahayd qurbaha dhibaatada ka jirta waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaan in haddii wadankii uu hagaago in caruurtooda ay halkaan ka wada kaxaystaan ay si dhaqankii iyo diinta islaamka ay bartaan iyo dadka soomaaliyeed waxay yihiin ay arkaan soomaaliya nolosha waxa ka jira qofkii awooda
laysna kaalmeeyo oo qof kasta qofka kale uu ku booriyo in wadankii loo noqdo si aan u noqono ummad wadaniyiina. cabdi aad iyo aad umahadsantahay. waxyaartana dhegaysanaysa maanta waxaa noo suura gashay inaan tagno goobaha lagu qaxweeyo inta badanna lagu falanqeeyo siyaasadda soomaaliya. marka waxaa noo suura gashay inaan wareysano doctor maxamed beenis oo kamid a maaragtay hogaamiyaasha jaaliyadda soomaaliyeed. maxamed adigoo aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya sidee ayaa u aragtaa maanta? cumar waa mahadsan tahay. marka ugu horeyso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxaan ugu bishaaraynayaa in ilaahay sanad khayr qaba nooga dhigo sanadkan cusub uu bilaabmay. dhammaanna waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan nabadda oo soomaaliya sidee loo heli karaa in la helo nabad oo dadkii dhibaatada aad ogeed ku dhacday iyo musiibadaad ku dhacday in ay dadkii ay u hogaansanaadaan baaqyada ka soo baxayo ra-iisul wasaaraha nuur cadde iyo nimanka madaxda oo wadanka joogo oo ka shaqaynahaya nabadda sida loogu soo hogaamin lahaa laisugu keeni lahaa soomaali loona midayn lahaa afkaarta siyaasadeed ee wadanka ka jirta. waxaan ugu bishaaraynayaa dadka waxaan codsanayaa dadka u shaqeeyo United Nationka iyo hay-adaha gargaarka inay degdeg ku tagaan goobaha dhibaatada ka dhacday ee dalka Soomaaliya oo gaar ahaan magaalada Muqdisho dadka ku baaba'san yihiin oo ay ku rafaadeen ay ku dhamaadeen oo dadkii in loo gurmado oo gurmad degdeg ah la geeyo ayaan ka codsanaynaa annaga haddaan nahay diasporada dadka ku nool dibadda ku nool in ay dalkii intaasoo sano dad baa maaragtay ka barakacay meel kasta ka barakacay in la gaarsiiyo daacuun dhibaato cudurro abaar ayaa meel kasta ka jirto. marka waxaa loo baahan yahay horta hore marka ugu dadkii in loo gurmado oo gurmad degdeg ah la sameeyo. tan xigtana waxaan rajaynaynaa in ay adduunka international community-ga iyo beesha caalamka inay wado ay ka shaqayso nabadda sidii loogu horseedi lahaa loo gacan siin lahaa xukuumadda ka jirto TFG-da ay ugu gogol xaaran lahayd dib u heshiisiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shirkii Jabuuti Sheekh Shariif iyo ciyaartii kale oo ka qaatay dib u heshiisiinta in arrinkaas loo gogol xaaro awood la siiyo gacanna la siiyo ayaan aniga ku baraarujin lahaa fikirkayga gaar ah oo Maxamed Axmed Enis. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maamul cusub iyo isbeddel siyaasadeed. marka maamul noocee ayay Soomaaliya u baahan tahay u malaynaysaa? waxay la tahay maamulka waxaa ka horeeyo maamul kastoo la samaynayo horta mid baa hadda jiro oo beesha caalamka gacan ay nagu siisay oo laga soo dhisay dibadda laga soo dhisay adduunkana mar buu attention ku siiya mar kale kuma siinayo. beesha caalamka waxay soo sumisay baarlamaan oo Soomaali oo loo soo sameeyey ka wada muuqdaan Soomaali si u wada dhasheen iyo deegaanadooda. waxaa loo baahan yahay asagii in la hayo gacanta lagu hayo laga shaqeeyo sidii maaragtay asaga mar kastaba institutionkaas loo ilaaliyo kadibna through institutionkaas lagu soo hago dadka kale oo ka maqan ama mucaarad ha ahaadaan ayagana ay kala shaqeeyaan institutionkaas in lagu soo rogo oo shaqeeyo ambaqaado geedi socodka nabaddana waxay ka imaan kartaa dadka shacabka Soomaaliyeed oo meel kastoo ka joogo inay ka qayb qaataan geedi socodka nabadda oo loogu baaqay adduunka ugu baaqay United Nations ugu baaqeen. halkaas waxaa ka soo bixi karaa maamul oo marka ugu horeyso ka abuurmi karo in amniga la sugo in nabadda laga shaqeeyo in nabadda lagu soo dabaaliyo ummadda meel kasta ay joogaan qoryaha iska dhigaan dadka wada hadlaan dalka anagu Soomaali baa iskale Soomaali oo ka dhexaysa saasay ila tahay anigu in maamulka halkaas oo ka bilaaban karo. maxamed aad iyo mahadsantahay. haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano cali warsame oo kamid ah odayaasha Soomaaliyeed. adigoo mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee u aragtaa maanta? والله runtii anagu ilaa waxaan ku jirnay 20 sannadood qofkii wax garanayso Soomaaliya waxaan garanaynaa anaka odayaal maadaama aan nin weynahay ilaa 54 60 70 dowlad maxanteeda ninkii nabadgelyo maxanteeda iyo Soomaalnimada ninkii garana waa garanaya ninkaan garanayno hadda wixii dagaaladan ku facahayna
waa waxaan hadda kuwa qoryaha tuurayo waa goodidayo nabadgelyadaba maaragtay waxay tahay aan garanayn marka arrinta hadda meesha ay ka socoto oo hadda raggaana ka bilaabeen sidii ama ra'iisul wasaaraha ama haddii kale ninkaan ama xaakiimta qolada hogaaminaya aad baan usoo dhaweynaynaa soomaaliya waxay u baahan tahay wax la yidhaahdo nabadgelyo haddaan nabad lahayn wax jiraan ma jiraan nidaamka dawliga ah cidda taqaana waa taqaanaa ciddaan garanayna waaba cidan wax garanay nidaamka nimanka hadda wada arrimahan gobol xaarka nabadda niman iyagu ku kooban shaksi yani wax iyaga shaksiyaan ku kooban ma waa wax shanta soomaali ka dhexeeya soomaalida oo dhan u dana marka arrimaha yani cid walba ku jirto danta nin walba dantiisu waxay ku jirtaa nabadda iyo soomaalinimada iyo muslimnimada anigu wadankii sida hadda maaragtay raggaana gobol nabadeed u fidiyeen in halkan laga tibaaxo ilaahayna maaragta ku garab galo annaguna dadkeena diyaasbarada bannaanka jooga raalli baan uga nahay wixii hadda soomaalinimo ku jirto waxaan soomaalinimo iyo diin ahaan iyo wala aan garanayn maslaxadda iyo qayaarkooda dadku meel iskugu wada raacin maayo waayo ilaahay abuurtaba ayba bilaandigu ku caasiyey marka annagu dadkeena muslimka ah walaalka ah soomaaliga ah wixii nabad ku nahayso ayaan jecelnahay waxayna ifafaalo noo muuqdaan dib waa ka soo daalnay ilaa 20 sano dhibkaan ku jira waxaan ku gara karnaa in imanka maaragtay meeshii hadda gogosha nabadeed oo la fidiyey in halkan laga wada tibaaxo qofka muslima oo soomaaliya wax garanaysa taasaan aniga ra'yiyaan qabaa maadaama aad tahay oday Soomaaliyeed xiritaanka la xiray Maxamed Dheere maanta boqola tahay inuu cashar ama tusaale u noqon doono siyaasiyiinta kale ee rajada kale ee mustaqbalka Soomaaliya maxamed Dheere nin siyaasiya waa siyaasadda waana la isku xiraa waana la isku dilaa anigu ninka maaragtay xirigiisa waxba kuma faraxsani haddana waxaan kalsooni ku qabaa maaragtay meel ku xiran wadankiisa waaye waxaana ka imaan doona maaragtay maslaxada ka dambayn doonta wixii maaragtay xerig waaba xeriga dilaaba dhaca dilku hamba ma leh laakiin xerigu hamba uu leeyahay ninkaana waxaan leeyahay asigaa maaragtay allah u sakhiro oo maaragtay dhibka ku dhacay raallina kama ihi waana arrimo siyaasadeed waana la isku dilaa waana la isku xiraa ma garan aad iyo aad ayaa umahadsan tahay haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano Cabdo Cali Cismaan Cabdo adigoo aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee u aragtaa wallaahi waxaan arkaa wax wanaagsan oo hore loogu qacayo ayuu ila muuqdaa isbeddelka siyaasadeed oo muuqda oo sababtoo ah dowladdii ku-meelgaarka ahayd oo la soo dhisay iyo ururkii mataqaanaa dib-u-xidhaynta haddii heshiiyeen mar oo wax meel isla dhigteen international communityguna uu goobjoog ka ahay in arrimahaas siyaasadeed oo caalamka uu nala wado inaan annaguna dhinacaynaga aan ka qaadano oo maaragtay ummadayna iyo dalkayna iyo dadkayna aan nabad aan la raadino ayaa aniga ila quman hadee nabaduna iskama timaade iyo wanaagu iskama yimaade waa la abuuraa mar walba waa la abuuraa marka inaan nabad iyo mataqaanaa dowladnimo iyo qarannimo iyo wadaninimo aan maaragtay aan anagu abuurano oo gacmahaynaga iyo maskaxdayna iyo caqligayna iyo aqoontayna ku keensano oo wax lama wadaano marka arrimaha ay hadda ay wadaan international communityga iyo ururka dib-u-xidhaynta Soomaalida iyo dowladda ku-meelgaarka ah oo murcadda uu hogaamiyo ahayo aad baan ugu faraxsanahay in mataqaanaa la hirgeliyo ayaan aad u jeclaan lahay maadaama ay ummadda nabaddu ay dan u tahay horena loo socdo ayaan aad u jeclaan lahaa asalaamu calaykum aad iyo aad ayaa umahadsan tahay haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano Cabdiweli Daahir Cabdiweli adigoo aad u mahadsan isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee ayaa u aragtaa bismillahi raxmaani raxiim isbeddelka Soomaaliyeed kolley horta insha Allah waa soo dhaweynaynaa hadda xaaladda meeshay marayso dadka Soomaaliyeedna kolley insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu horumar gaaro ka waantoobo dhibaatada hadda Soomaaliya haysata oo ay ka mid tahay burburka iyo barakaca iyo daacuunka iyo cudurrada ku dhacay saas daraadeed dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan suganaa inay isugu yimaadaan garoonka nabadda oo dadka Soomaaliyeed kurtigood maaragtay kii dagaalanayay kii kaloo maanta maadaama uu ka tegay hadda ninkii lahaa madaxweynaha dalka waa uu ka tegay inay isugu yimaadaan dhammaantood kursiga nabadda markaasna loo eego barakaca iyo dhibta dalkana la dhiso taasan ayaan dareemahayaa maaragtay inay tahay horumar waxaan kaloo dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa ninkii qori wata iyo ninkii kaloo dhiga oo garoonka nabadda imaada madaxda nimanka hadda ah oo wadanka maaragtay hadda hogaaminaya dowladda waqtigeeda ayaguna dadka Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan dhammaantood kursi nabadeed kursigaas nabaddana dadku ku wada hadlo markaasna loo arko muxuu dadka
Soomaaliyeed intay wada hadlaan wixii dan ah ay ka wada hadlaan intaas alla yaabo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ay u mahadsantahay. haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano cabdinaasir oo ka mid ah isagana dadka halkan fadhiya. cabdinaasir adigoo mahadsan, isbeddelka siyaasadda ee Soomaaliya sidee u aragtaa? bismillaahi raxmaani raxiim. horta sanad wanaagsan. anigoo ah cabdinaasir macalin cabdullaahi shoomar toronto degan, waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed. ilaahay soomaalidu waxay tiraa waxay ku maamaadaa waalkeen ilaahay nagama reebo. 19 sano ayaan dowlad la-aan nahay. wax ummadda Soomaaliyeed wax aan dowlad lahayn adduunyada ma jiraan. marka waxaan rajaynayaa anigu guud ahaan waan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed sida ugu dhaqsiya badan in ilaahay dowlad wanaagsan u sahlo oo na siiyo oo soomaalinimada iyo diinta islaamka ku shaqaysa. waa dhammaatay. aad iyo aad ay u mahadsantahay. haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano cabdikariin. cabdikariin, isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya sidee u aragtaa? bismillaah walxamdulilah. allahuma salli calaa maxamed. bismillaah. waxaan aniga aaminsanahay sideedaba laba nabdood baa jirta. nabad waxa ay maaragtay dan u tahay dadka loo yaqaano reer galbeedka. nabadna waxay dan u tahay oo la jaan qaadaysa dadka islaamiyiinta ah oo dadka islaamka ah. marka annaga waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan ogaano waa midda ah jaanqaadka dadka islaamka ah. marka waxaad nabad noogu jirtaa in dadka islaamiyiinta ah aan raacno. sababtoo taa waddankeena waa la qabsan lahaa. ayaga ayaa maaragtay u kacay. haddana ayaga ayaa dhammaystiraya insha allahu tacaala. marka dadweynahan waxaan u sheegi lahaa la sirin, hana is ilaaliyaan, hana raacaan dadka wadaadada ah. aniga weligii firqooyin ma sheegayo, laakiin dadka islaamiyiinta lagu tilmaamo inay maaragtay ay garab galaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi اوكي haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano xasan ibraahim. xasan, adigoo mahadsan, siyaasadda ama isbeddelka Soomaaliya sidee ay u aragtaa maanta? wallaahi siyaasadda Soomaaliya waxaa weeye aad iyo aad bay macnaha isku bedeshay. xaaladda markay noqotay inay soo farageliyaan ciidamo shisheeye oo waddanka looga baahneen. ciidamaha shisheeye waa inay ka dhammaadaan Soomaali. xaaladda keliya wax la weerar kale Soomaali waa sidaas. marka haddii ciidamada shisheeye ay Soomaaliya ka baxaan, maxaa xala oo aragta inaad ku arag Soomaaliya marka inay ka dhacaan? Soomaaliya xanaan waxaa ku filan intii hadda xasuuq loo sameeyey ay ku sameeyeen dadka shisheeyaha. xalaasha Soomaaliya xanaan ugu filan iyo dhibaato. soo hadda Soomaalida waxaa rajaynayaa inay isku laabtaan qabiilkii ilooween sida hadda loo iloowo kale. ilaahay waxaa ka baryaynaa inay Soomaalida qalbigooda isku soo dugo, isku soo celiyo, oo gaaladan iyo shisheeyahan oo hal meel ugu soo wareejaysanaa aan waddankii qarnimadii Soomaaliya soo celino. taas waa inaan ka hadalnaa. haddana waxaa noo suura gashay inaan wareysano Zakariya Xaaji Cilmi Aadan. okay, Zakariya, adigoo mahadsan, isbeddelka siyaasadda Soomaaliya maanta kusoo kordhay sidee ayaa u aragtaa? wallahi waxaan u arkaa arrin fiican oo horumar weyn leh. insha allah waxaan rajaynayaa in Soomaalida ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinkii iyo dowladihii xumaa ay hadda soo mareen, ay isku yimaadaan ee dowlad fiican oo waddankii dadkii dhibaatadii ay isku yimaadaan dowlad fiican asaasaan oo dhibaatadii iyo experience ka faa'iidaystaan. marka arrimahan qabiilka iyo dowladahan wixii soo mareen dhinac isaga dhigo oo isku yimaado. dad badan oo dowladaha jira oo rabo inay imaadaan Soomaaliya, Soomaaliyana u duceynayo inay dowlad iyo dowlad adduunka laga ictiraafsan yahay u imaato. insha allah marka ilaahay tooganaya in dadkan ka faa'iidaystaan experience-gii la soo maray. experience-gii haddaan laga faa'iidaysan Soomaaliya weligeed waxay ku soconaysaa last 20 years wixii lasoo dhaafay kusii soconaysaa. marka dhibaatooyinkeed lasoo maray waa in la qoraa, isku yimaadaan, laga fiirsadaa, analysis lagu sameeyaa. insha allah kadibna dowlad fiican oo sharaf leh ka dhalata. asalaamu calaykum.